xaflad si heer sare loo soo agaasimay xilka kula kala wareegayeen maayirka cusub ee degmada Gumburaha iyo maayirka degmada Beligubadle oo hore u xukumayay degmada Gumburaha intii aan loo magacaabin degmanimo ayaa waxa ay ka qabsantay gudaha degmada Gumburaha waxaana ka soo qayb galay xil wareejintaasi madax kala duwan cuqaal wax garad iyo dhamaanba shacabka ku nool degmadaasi xildhibaan Axmed Kijando oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ugu horeyn waxa halkaas hadallo mahadnaq ka jeediyay odayaasha deegaanka iyo caaqil Maxamuud Aadan Gaas caaqil Cabdi Maxamuud God oo ka faalooday degmada Gumburaha waxa kala raacinaya oo maqmaqlayay xad baa loo sameeyay degmada leeyahay 5 kiiloomitir laba waxa sameeyay xadka wasaaradda dakhliga sameeysa maamul dawladeed baa ku shaqale taas isaga loo dhaafaya xogaya kana nin waliba waa inuu xusho ciidda wanaaga ka shaqeynaysa degmada horumarinaysa waxaanu leenahay waxaanu muxuu ahay degmadani waa degmo kulmiya baan leeyahay waa degmo kulmiya waa degmo horumar jecel waa degmo la garanayo iyada iyo Beligubadle inay kulmiya tahay waxaanu leenahay kulmiyana sidaa ha ogaado mas'uuliyiintu sidaa ha ogaado madaxweynuhu sidaa ha ogaado sidoo kale waxa halkaas ka hadlay maayirka degmada Beligubadle Cabdi Iimaan Jaamac oo ballan qaaday horta maanta farxad weyn bayna aniga tahay anigoo wareejinaya degmadii Gumburaha horta anaga iyo haybi amba degmada sidii hore aan uga shaqeyn jiray ma shaqeynaya ma nin kale waa damba baxaysaa nin amba baxay waa degmadaydii waa la shaqeynaya labada waan u baahanay qaarka way soo kordhin baahanay hadii gobolka hawdnahay calolfayoobanna ku wareejinaya Cabdi Aadan cilmi maayirka degmada Gumburaha ayaa doorka hadalkiisa ku tilmaamay way inoo akhriyay wixii ugu wareejiyay waxaan ballan qaaday waxa ugu wareejiyay sidii ugu wareejiyay inaan u ilaalinayo inaan u ilaalinayo waa hanti qaran buu ugu wareejiyay hantida qaran sidii ugu wareejiyay sideedan u ilaalinaya waxaan kaloo ballan qaadayaa maayirku sida sharaf leh u wareejiyay inaan anna noqon doono qof u furfuran oo ula shaqeyn doona gobolka Hawd gabagabadii waxa soo afmeeray barasabka gobolka Hawd oo xilka uu kala wareejiyay labada maayir meeshan 3-4 ajende baa halkan la keeni kara mid waa ka xukuumadda oo degmada magacawday xukuumadda laba qodob baa degmadu ka sugaysay mid waa magacaabistii degmada la magacaabay iyo maamulkeedii la soo magacaabay xilkii xukuumaddu way gudatay marka dhinaca laga eego ajeedaha labaad waxa weeye waa ka shacabkeeda waxa looga baahan yahay inay dhismihii bilaabaan gunaanadkii xafladaasi ayaa shahaado sharafii lagu guddoonsiiyey xubnihii ku suntanaa waxqabadka gudaha Cabdiraxmaan Samriye TV caalamiga Hon Cable TV degmada Gumburaha.